سؤال في عن إن هل غفدرتيس أنت سو مداد وديواتيسو شعب مسؤولية ذي يكون صارتين وديواتيسو وعلى في عيان markii oo soo tuuray dad ag taagna mahana kaligiis meel kaligiis oo inuu soo istaago ma soo tuurin dadka ku soo dulgan baday shacabka marqaatigan waxa uu kaga jawaabayaa qareenada sababta uusan uga hortagin ficil argagixisanimo ee uu arkay isagoo hubaysan laakiin ababinta amni waxa ay faraysaa badbaadada dambiilaha mana ku sii jirto marka ay ku caddahay in qasaare ka badan uu imaan karo falkaaga kadib maadaama eedeysan Isxaaq Keerow Aadan Cali uu ka dhex tuuray bam dad shacab ah xilaa furkiya Ramadaankii tagay farsamo amni oo isticmaaleen ciidamada ilaalada laanta horseed ee suuqa labaad ee ugu weyn Muqdisho suuq bacaad ayaa lagu soo qabtay eedeysanaha May sanadkan waxa uu isku dayay inuu marin habaabiyo ciidamadii eryanay balse xidigla Ciise Axmed Cali oo ahaa baaraha uga wakiilka ah kiiskan laanta dambi baarista booliiska CID ayaa fadhigan maxkamadeed ka cadeeyay sida ay u maareeyeen marin habaabinta magac ee uu eedeysanaha ku sameeyay hay'adaha amniga kadib baaristeena waxaan u baahanay in aan waxooga badan ka helno eedeysanaha waxaan la wadaagnay wardoonka booliiska markii aan la wadaagnay xogta eedeysanaha waxa ay dib noogu soo celiyeen magac uu sheegtay aanan ahayn oo ah Isxaaq Keerow Aadan in la yiraahdo kadib magacii markaan helnay waxa aan la wadaagnay laamaha amniga ee gobolada Baay iyo Bakool oo uu eedeysanaha ka soo jeedo markii aan la wadaagnay waxa ay dib noogu soo celiyeen jawaab ah inuu eedeysanaha uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab xilli hore oo muddo 6 sano ka horna uu ku biiray kadib waxaan ku soo hadana mar labaad ku soo laabanay eedeysanaha inaan mar labaad wax ka qorno cadayntii labaad markaan aan ka qoreynay waxaan u yeernay magaciisa saxda ahay maadaama magac hore uu sheegtay Cabdiraxmaan ahay magaciisa saxda ahay Isxaaq ay iska waran xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa Isxaaq Keerow Aadan Cali ku eedeeyay 10 bam gacmeed uu ku tuuray bara ciidan oo ku yaala degmooyinka Yaaqshiid Shibis Boondheere iyo Wadajir sidoo kale Isxaaq ayaa lagu eedeeyay dilka Allah u naxariistay marxuum laba alif la booliis Faarax Cabdulla Cariif inuu qayb ka ahaa weerar argagixisanimo intuusan ka soo wareegin jabhadaha gurguura xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Cabdullaahi Buule Kamey ayaa maxkamadda weydiistay in lagu xukumo Isxaaq Keerow Aadan Cali ee qaab u dhiganta dambigiisa intii bam oo uu tuuray waa 10 bam iyo goobii uu ku tuuray marka la isku daro dhammaan waxay cadeynayaan oo marag u yihiin sida halis ummadda uu ugu yahay eedeysanaha maxkamadda hortaagan oo haatan ka hor 10 bam ku tuuray magaalada Muqdisho 10 goobood oo kala gedisan inkastoo uu qirtay 2 kamida in wax ku dhinteen oo midi uu ahaa kii ugu dambeeyay ee rugta booliiska ee Yaaqshiid uu ku dhuftay askariga booliiskana uu ku dhintay isbatoorihii ka madaxda ahaa rugtana uu ku dhaawacmay oo hadda maxkamadda horteeda uu ka marqaati furay eedeysanuhu waa mid khatar ku ah ummadda nolosheeda inta uu dilay ka sokow inta oo kale oo uusan qiran baa meesha ka badan inta uu haatan qirtay sidaa darteed maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanayaa in eedeysanaha lagu xukumo ciqaabta u qalanta oo ah dil toogasho ah maadaama uu horay u laayay dad Soomaaliyeed oo badan iyo saraakiil ciidamada ah si ay ugu tusaale qaataan kuwa dambe ee soo socda si ay ugu tusaale qaataan cawaaqib xumad ay ka dhacli karaan falkaan oo kale isagana ay abaalmarin ugu noqoto dambiyadii uu galay maxkamaddu waa mahadsantaa qareenada u doodaya eedeysanaha ayaa ku dooday in eedeysanaha uu markasta ka noqon karo qiraarkiisa intaysan maxkamadda go'aan kama dambaysa ka gaarin sidaas darteedna ay maxkamadda xorriyadiisa siisay Isxaaq ma ahan qiraarkeygii eedda waa eed uu ka noqon karo marxaladda markasta ay marayso meeshaas markaa uga tago waxaa kaloo jirta mudan gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh qiraalka 150 qodobka 150 ee xeerka habka waa uu ka noqon karaa sidoo kale haddii ay timaado in eedeysanuhu uu sheegto maxay qasbid tahdiid ballanqaad waxyaabo badan sida qodobka uu qabo waa maxkamadda ayada nooga aqoon roon maruu ka afuray socdana dhinacu bixilay xabadaha ka yeeray dhinaca kale u leexday saasaa lagu soo qabtay mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh way muuqataa inuuna Isxaaq Keerow Aadan Cali oona ahayn dambiilo gale dambiga lagu soo eedeeyay
sidaas daraaddeed maxkamadda waxaan ka codsanaynaa ayada sharciga nooga aqoon badan noogana dadaal badan inay xorriyaddiisa dib u siiso. gaashaanle sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda. dhegaysiga eedda ka dhanka ah eedaysane isaaq keerow aadan cali intaas ayuu ku dhan yahay. maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso. wabilaahi tawfiiq. cabduqaadir ciise, warbaahinta qaranka, Muqdisho.